ninkii rabaha u xishee xaashaqo xabashidee anaa xamare ku jecel waan salaamaya walaalayaal aad baan salaamaya dabcan halkan waxaan soo galay saddex qodob inaan ka hadlo qodob koowaad waxaan rabaa inaan ciyaal xamar ama gobtii reer muqdisho inaan fariin u diro oo qodobka labaad fanaanadeeni habonuura inaan fariin u diro oo qodobka saddexaad yaryarkan cilaaj ku xareysanay qarannimada cajalada ka go'day baan rabaa inaan laba xabo muhiim u sheego gabadha ku dhagan horta waa kuwa ciyaal xamar walima horta in muqdisho fanaankii ugu horeeyay loo xidha baan ahaa 2015 ilaa 2014 waxa laga yaabaa dhalinyarada maanta social media ka caanka waqtigaas inaan social media ku jirin muqdisho su'aal baa weydiiyay horta gobonimo iyo gunnimo miigeed wada fariisan karaan waa maya magaalada muqdisho waxa soo degay 2015 waxaana ku soo guuray 2020 reer muqdisho marxalad kasta oo wanaag iyo xumaan ku jiraaba maalin qolada banaanka ma aadinaa shaqayntan u baxo soo laabta mooyaane macnaha cabsi iyo walwal ay galay ma aysan jirin marxalad kastaba joogeedan kula qaadanay maalintii hargeysa lagu xidhay dhowr sano xariga loo jaray marka hore inta maxkamadda la keenin qodobkii lagu soo eedeeyay buu ahaa aniga kan macanahan inaan furayo jid cusub oo ah muqdisho hargeysa waayo waxaan fanaanka ugu horeeyay qof caan oo macnaha taga oo qoyinta ka taga koonfur dadkii ugu horeeyay kamid ahaa anigu aad u dhalinyar ayaan ku dhiiraday maalinta go'aan ka qaatay inaan hadan ku taaganahay muqdisho hooyo gobonimo taala dad waxa jooga asarkii Soomaalida ah oo aad u dulqaad badan dhalinyarada hadii tahay inagoo maqaamka magaalada ilaalinayna gunta xagan mayno soo hagarsan ma maamulkeena ka timid madaxtooyada timid marka gobonimada aad dheertihiin bulshada Soomaaliyeed waxa weeyaan oo inta bilaan naxliga ah waqtad ma qabno waxa saydi sheegaya isla xisaabtan bil hoos gashan la kuude habo way naga soo garbaxaysa muqdisho iyo dadkeeda way ka soo garbaxaysa xalin iyo xaal marin bay bixiyay sameyn insha Allah codkii ay shalay toole ay lahayd malihin cadaab xamar ka daran jirka meesha la taabto madaxa u sareeyo dhulna waa mininkeeniyo muqdisho la yaqaano adeertani walaga maarmaan marka haboon waan uga fadhinaa marwamba ayaa ku heliya soo dhawaanayna waa mid labaad haboon ma ku soconaya haboon ay gabadh reer awdala baatay faraad reer awdala rooqooya reer awdala waxa weeyaan waa bila gudub laakiinse cajalad bay kula sordeen barigaas meel fog maysan gaarin ciyaal xamar oo dhaba ka daba tagnay afuufnay qaboojinay dajinay Soomaali baa tihiin baan nari waxay wadeen nasabyadii ku soo celinay adigu wixii waa dhamaadeen inaad wixii damay lagu soo orjin cajalada yare kharaabka ilaajka laga soo staarayo uun dambe adiga Soomaali ku dhimanina qolyahan kale waxaan leeyahay qorshihii miqaanka qaadiradu lumisay war markuu qof reer awdal oo madal Soomaali joogto tago hal lacabadan idinku waa noogu horeysan nooga dambeysaaray meel ka hadalaa gabadha nooga fuqa ya ama la fawata ama dhagaxyo wata idinkeedii taala bisa gabadhaas soo noqonaysa dhulkeedana ku soo laaban doontaa adeeran kala dhamaano daaya gabadha taladana ciyaal xamar baa siinaya halkaad ku goysama ku go'ayna insha Allah waa salaam yaa naga ciyaal xamarsan qoliyo badan aadna hor yaacay baan kaga soo warinay magaalada qaar ka soo dhaweynay muqdisho oo 2017 soo galay muqdisho sharafteeda aan jecelahay oo karaameynaa qof kasto ku xad gudbana xaal marintiisa laga rabaa lagu cafin maayo haboon oo uga fadhina walaal salaam